مرتشرف كقيمة قايلة عن وجمع علمنا كسوق قيب كلام عسماتي كسوق قيب كلام أنا وجمع موسى حلبان عبد الله آدم محمد آدم شاعر وحلبان صومالية نقل مدن سودوين تان ماتي ميت كهير سلسة انتوا waxaan rabaa laftigeeda inaan xildhibaanka u dhiibo aan u dhiibo dareenka dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta ay ku nool yihiin adduunka dacaladiisa anigu waxaan qaataa xildhibaan oraah aan dhaho Soomaaliya xagee ku socotaa waxaan ku dhahaa meelaha badan ee Soomaaliya isku maad inta waan tusaa Soomaaliya maanta waxa talada u haya ee ugu weyn waa 50 jir ilaa 60 jir waxa uu ilaa waa 40 jir ilaa 60 jir marka waxaan dhahay 60 jir waa nin soo arkay ala aqal dawladii maxay saad barakasho shaqeeyay iyo dawladii koreeyay tab soo arkay 40 jirna garaadkiisu waa soo arkay dawlad iyo systemkeeda inta laakiin ninkii 30 jir maanta wax dawladda ma soo arag 30 sano ku dhawaad ayaan nahay burbur 30 sano hadda kadib marka maanta ninkii 30 jir wuxuu noqonayaa 60 jir wiilku dhalan wuxuu noqonayaa 30 jir wiilkiisu dhalana wuxuu noqon karaa 15 jir wiilkii maanta 30 jir markuu 60 sano gaaro wuxuu noqonayaa xoogii iyo maskaxdii dalka oo anigii dalka arimeeyay 30 jirkan wuxuu noqon doonaa xoogii dalka wiilku dhalan wuxuu noqon doonaa ubixi dalka imagine marka maskaxdii dib u celiya 60 jir talada dalka hayaan weligiis dawlad arag xoogii dalkoon dawlad arag ubixi dalkoon dawlad arag xagee ku socon doonaa waxaan ka warhaynaa dawladaha dariskeena iyo Afrika inay 1 milyan iyo wax ka badan ay ka baxaan dugsiyada sare ama jaamacadaha ay dhameystaan isku wada laakiin Soomaaliya waxa la sheegaa dad 1 milyan ku dhow inay gudaha ku barakacaan dibadana ku barakacaan saxaraana ku dhintaan waxaan dhigi karnaa marka xildhibaane dadka talada maanta noo haya 60 jirka 30 sano kadib dalka nooma joogi doonaan haddaan dhalinyaranahay annaka ayaa ka amada dawladna maana arag marka waxay ka dhigan tahay haddaan 30 sano dawlad aan noqono dalka Soomaaliya meesha isku baabi'i doono marka waxaan dhihi lahaa qof kasta meesha ka soo qayb galaya xildhibaane maskaxdaada dib u celi 30 sano kadib wad habbi Soomaaliya waa fariin aan rabo meel kasta joogtiin inaad u gudbisiin madaxda qof kasta Soomaaliya dhahdeen 30 sano kadib wiilkan dawladda asaga dalka madaxweyne ka noqon doono wax buuga noo dhigan ma jirin wax taariikh aan haysana ma jirto wax baag ah maanta haysana ma jirto waxaan haysanaa kaliya xildhibaan isqabsaday madaxweyne isqabsaday maamul haysta 30 sano 60 sano kadib garta markaan fariisanaa dawladaha la xisaabtamayno waxaan leenahay xildhibaankeen waa saysan jiray asagana wuxuu leeyahay awgeeya soo tirin jiray marka waxaan u baahanahay taariikh dhab ah oo nagaga tago 30 sano hadda kadib waana maasanta xildhibaan